الحياة وكل يموت ولكن إسلامنا لا يموت. لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد. ولا ليال dadka muslimiinta hadanahooda in laga shaqeeyo, muslimiinta la anfaco oo wax la taro waa arrin aad u khayr badan. diinteena aad u boorisay. Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa in badan ayuu ku booriyaa khayrka in la sameeyo, in dadka loo samafalo, wanaag loo sameeyo. Allah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku leeyahay ya ayyuhalladhina aamanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu la xiriiriyay khayrka in la sameeyo, dadka wanaag loo sameeyo, dadka la anfaco. salaada ayuu la xiriiriyay, wuxuuna ku xiray Allah subhanahu wa ta'ala liibaanta ayuu ku xiray la'allakum tuflihun. nabi alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri qofkiiba awoodo heli kara inuu anfaco walaalkiis ha anfaco ha ku dadaalo. man istada'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al, fi riwayatin falyanfa'hu. qofkii awoodo oo idin kamida inuu anfaco walaalkiis ha falo ha anfaco. marka dadka in la anfaco oo wanaag loo sheego oo wax la siiyo oo wax dheef iyo talo wanaagsan iyo wax kasta oo loo qaban karo loo qabto arrin khayr badan waaye. walaalka muslimka ah oo yaan laga badsanin inaad ka shaqeyso danaha muslimiinta, inaad muslimiinta anfacdo, inaad muslimiinta wanaag u sameyso, yaan laga badsanin. inta heli karto ku dadaal. nabi alayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay qofkii awooda ee heli kara inuu anfaco walaalihiis ha anfaco. nabi alayhi salatu wasalaam waxa la weydiiyay acmaasha Allah loogu dhawaado midda loogu jeclaanta badan yahay Allah agtiisa subhanahu wa ta'ala. nabiga la weydiiyay alayhi salatu wasalaam ayu al-a'mali ahabbu ila Allah. acmaasha Allah loogu dhawaado subhanahu wa ta'ala tee loogu jeclaan badan yahay Allah agtiisa. nabi alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri acmaasha Allah agtiisa loogu jeclaanta badan yahay waa walaalka oo aad ka farxiso, walaalka oo aad ka farxiso, oo aad wax siiso, waxbarasho ka dhiibto, oo aad wax barto, oo caafimaad ka bixiso, wax walba u baahan yahay aad uga farxiso. marka waa amal aad u weyn. dhibaatad ka feedaysa, deeynaad ka bixinaysa, waxbarasho u baahan yahay ka bixinaysa, arrin qiimo badan way. hadda kara waxa la yiri ninba markuu ka baxo maalinka jumcada salaada wuxuu fiiri jiray dhinaciisa midigta ah iyo dhinaciisa bidixda ah. dhinaciisa midigta uu fiirinaya markaas uu leeyahay qofka fadhiya walaal wax baahiya ma leedahay, waxdana ma leedahay. haduu yiraahdo ha baahi waa leeyahay, baahi waa qabaa, wuxuu ka qaban karo ka qabanaya. haduu yiraahdo wax baahiya ma lihi, waxdana ima hayso, wuxuu fiirinaya dhankiisa bidixda ah. markaas uu leeyahay walaal ma u baahan tahay gacan qabasho iyo wax lagu siiyo, wax lagu taro ma u baahan tahay. haduu yiraahdo ha u qabanaya. marka maalmaha kamida ayuu wuxuu fiiriyay dhinaciisa midigta ah, waxa fadhiyay nin aan wax baahiya qabin. markaas uu yiri wax ma u baahan tahay, markaas uu ninkii wuxuu yiri ma u baahni. dhinaciisa kale uu fiiriyay, markaas uu wuxuu yiri wax ma u baahan tahay walaal, markaas uu wuxuu yiri ha wax u baahanahay. waxbuu siiyay. markaas ninkii dhinaca midigta ka fadhiyay oo wax kama rabo ayaa weydiiyay arrintan maxaa kugu bixiyay ayuu yiri. markaas uu ninkii wuxuu yiri hadda ka hor sidaan oo kale maalin jimcaha anoo salaada ka baxay nin dhinacayga fadhiyay bidixda ah ayaa isoo fiiriyay. markaas uu yiri maxaa u baahan tahay walaal, markaasaan waxaa yiri waxaan u baahanahay in laga bixiyo waxbarasho. markaas uu yaa ku dareemay inaan murugaysan tahay, maxaa kugu dhacay? markaas wuxuu yiri aabahay biili jiray, waxbarasho iga bixi jiray, aabahay waa dhintay, waxbarasho in laga bixiyo aan u baahanahay. ninkii uu raacay wuxuu yiri xagee dhigataa? wuxuu yiri jaamacad Highland dhigtaa. jaamacadii uu raacay, jaamacadii wuxuu yiri ninkan inta u dhiman oo sano ana bixinayo nambarkii qorta isoo waca aniga. sidii uu yeelay lacagtii uu ka bixiyay. ninkii waxbuu bartay, nin wuxuu noqday macallin oo dadka wax bara oo Ilaahay adduunyo iyo aakhiraba u dhiibay. wuxuu yiri waxaan soo booqday markii ninkii iga bixiyay qarashka jaamacadda isagoo waayeela. markaasaan waxaa yiri waxbaan bartay hadda khayr Allah ku siiyo, waan gacan qabatay, maxaan ku qabtaa? markaas wuxuu yiri wax kale kaama rabe, inta aan ku sameeyay la sameey oo dadka walaalahaaga anfac. maalinka jumcada dhinaca midigta fiiri, dhinaca bidixda fiiri, walaalahaaga anfac, dadka gacan qabo. hadda inta sameeyso waa ii abaal guday. marka walaalayaal ku dadaal in anfacdan walaalihiina muslimiinta ah. billahi tawfiq. الحياة وكل يموت ولكن إسلامنا